hay'adda horumarinta iyo gargaarka haweenka Soomaalida Itoobiya ee qurba joogta ayaa deeqa boogana soo gaarsiiyay xafiiska waxbarashada ee dawladda deegaanka Soomaalida. Munaasabadii lagu kala wareegayay boogantan ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada ee dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Abubakar Maxamed Khalife, wasiirka haweenka dhalinyarada iyo caruurta Marwa Raxma Suldaan, iyo xafiiska tababarada iyo xirfadaha Mudane Maxamed Faatax Maxamed, iyo xubnaha ka socday hay'addan oo markii labaad deeq noocan oo kala soo gaarsiiya deegaanka Soomaalida Itoobiya. wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada ee dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Abubakar Maxamed ayaa halkaasi uga soo jeediyay qurba joogta u dhalatay deegaanka Soomaalida ee ku sugan ariga Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota gargaarkan kala go'an lahayn ay mar walba soo gaarsiinayaan deegaanka Soomaalida. maanta waxa farxad weyn noo ah oo guul aan gaarnay in buugaagtii wadanka Mareykanka laga soo raray in muddo ay jid ka soo jirtay inay maanta soo gaareen dawladdaanka Soomaalida xaruntiisii halka oo ay aan kala wareegayna maanta gabdhaha ururka Sawda oo la yiraahdo Somali Ethiopian Women Association Foundation. marka gabdhihiina waa kuwana buugaagtiina waa la keenay. tirada buugaagtan waxay dhan tahay 22,000 oo isku jirto xisaab iyo sayniski iyo Englishka intii oo dhan. waana deeq ay naga soo gaarsiiyeen gabdhaha diasporada ee Mareykanka gaar ahaan Minnesota. aad bay ugu mahadsan yihiin. waa daawan kartaan buugaagtii oo kala nooca iyo gaarigii laftiisii taagan. waxa kale inta sidoo kale noo qorsheysna oo annaga xafiis ahaan iyo deegaan ahaan aan soo diyaarinay shahaado sharaf aan ku siinayno kadib markaan kala wareegno kadib inaan shahaado sharaf guddoonsiino ururkii soo diyaariyay ee soo xilqaamay qorshahan. marka ayakana inay dadaalkii soo mareen looga mahad celiyo. waxa iyaduna munaasabada lagu kala wareegay booganta hadal ka soo jeedisay gudoomiye ku-xigeenka ururkan Marwa Canab Cali iyadoo oo cadaysay inay ku faraxsan tahay deeqahan ay soo gaarsiinayaan deegaanka Soomaalida Itoobiya si ay uga qayb qaataan horumarka kala duwan ee ka hana qaaday deegaanka Soomaalida Itoobiya. buugaagtan oo naga qaadatay waqti aan filaynin ilaahay idinkiis ma sha Allah haddana ay nala joogto ayaan ku xamdinaynaa hawshii adkeyd ee soo marnay ururkii dhamaa ee Mareykanka joogay shaqadiinii aad qabateen iyo wanaagii aad soo gudateen maanta waad aragtaan waa guushi waan gaarnay dawladdeennina way hanatay ciyaalkiina way hananayaan. marka insha Allah dawladdan oo mahad celinaynaa wasiirada iyo dadkii nala shaqeeyay oo noo fududeeyay hawshan oo dhan. marka ma garanayo waxa maanta am so excited baan ahay 22,000 oo Mareykan ka soo tagtay oo badaha soo martay oo intaas dhib u soo martay ina maanta ay ka faa'iideystaan deegaankeen. waan isku baroobeynay in wax qaban karno laakiin waan cadayno. deeqdan buugaanta oo isku jirta buugaanta fiisigiska xisaabta ay qaybo kale ayaa ka kooban 28,000 oo buug kuna baxday lacag ka badan 2 milyan oo bir. Xiga Axmed Buux, telefishinka caalamiga Soomaalisaad, Jigjiga.